dowladda hoose degmada Gabiley ayaa qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Gabiley waxa ay ka sameysay wada banayn taasi oo laga binayn doono wado isku xidhi doonta wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Gabiley sidoo kale waxay dowladda hoose degmada Gabiley iyadoo ahmiyadda saaraysa dhulka danta guud ee ay dowladdu leedahay waxay maanta si rasmi ah dib gacanta dowladda ugu soo celisay tiyaatarkii hore ee magaalada Gabiley oo ay shirkado gaar ah ku ganacsan jireen lagana dhisi doono xarunta ciidanka debdemiska Gabiley iyo sidoo kale waxay burburiyeen gabi ahaan deyrka meheradaha soo galay wadooyinka magaalada Gabiley waxaana si wada jira u bilaabay maayarka degmada Gabiley xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaanu fulin ku sameynay anagoo kaashana ciidanka booliska ee gobolka iyo degmada dhismaha wadada afartahaada ee isku xidhi doonto wadada tagta garoonkii hore magaalada iyo wadada weyn ee dowladda hoose hormarta muddo imika laga joogo bil ayaynu dhagax dhignay halkan aanu joogno waa goobtii tiyaatarka magaalada Gabiley ka ooli jiray iyadana intii dalka lagu soo noqday waxay ku jirtay gacanta dawladdaanu dib ugu soo celinay waxaana laga binayn doonaa xarunta debdemiska ee magaaladu yeelanayso oo shaqadeedu wiigan gudihiisa ay bilaami doonto waxa ku xigi doontaa kormeeran ku tagano dib u habayn iyo ballaadhin lagu samaynayo sariimadda xaafadda laag barako waxa aynu mashaariican ka sheekaynano hadday tahay kuwa hore u soo dhammaadaynu furnay iyo hadday tahay tan debdemiska iyo tan wadada iyo hadday tahay tasariimadda waxaasoo dhan boqolkiiba boqol dowladda hoose hirgelinaysa waa deyrkii aynu iskaa wax u qabsada ku dhisanay ee dugsiga sareen iyo Gabiley markaas aad arkaysaan waxaan doonayaa in maamulku gacantooda kaga qayb qaataan oo ay dadka garwadan ka ahaadaan ka arkayo ilaa saxaafadii ayaa gacantooda ku qodaya runtii aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinayaa banayntii iyo dumintii iyo soo celintii iyo dhismihii iyo dib u habayn waxaas oo dhaniba waa hawl ay wato maamulka degmada aan maanta qabanana oo magaalada Gabiley dhexdeeda ka socda afarta mashruuc halkan imika aynu taaganahay oo ah debdemiskii tii intaa ka harsan idmashadii ummaddu noo idmatay inaanu hayno mas-uuliyaddii waxaan doonaynaa inaan raad waxqabadle kaga sii tagno haddii la idhaahdo maanta waxaan soo fulnay waddadii afartahaad ahayd xisaabtamaya ee la odhan doono Gabiley halkeebay ka qurux badantahay amba wadooyinkeyga meelaha ugu bilicda wanaagsan bay noqon doontaa waxaa mashaariicii talo majibeerjibano waxaasoo dhan waxay ku baxayaan cashuurtiinada laga ururiyey oo si fiican loo agaasimay dowladda hoose fulinsay oo wada banayna kulay si fiican oo nabadgelyo abu nagu dhamaaday dadka waa Khalid Maxamed Daahir telefishinka caalamiga STN gobolka Gabiley.